أرضي بانهايو وبحي ودن وأنيقو معلم محمد إبراهيم halkan waxa ka sii wadanaynaa casharadii imtixaanaha inoo ahaa aan ku baranayna software-ka la magac baxay Tally ERP9 software-kan oo isticmaalaan kambaniyada waaweyn iyo ganacsatada yararka ah software-kan hore ayaa casharo uga soo qaadanay oo taxane inoo ah oo hadda waxaan qaadanaynay transaction-nada ama dhacdooyinka nagu cusub marka waxaan maraynay casharka final account-iga casharkan waa casharka saddexaad ayuu noqonayaa laakiin saan hore aan casharada soo qaadan jirnay waxaan soo qaadan jirnay dhammaan dhacdooyinka oo dhan iyo transactionada oo dhan ay soo qaadan jirnay laakiin maanta waxaan rabaa labada dhacdo kaliya inagu cusub inaan soo qaadano oo discount received iyo tan goodwill discount labada dhacdo kaliya ayaa rabaa inaan tuso sida loogu safgareeyo account muxuu ahaa software-kan Tally ERP9 software-kan oo ku sheegaya profit and loss account muxuu ahaa heeradaadu inay faa'iido ku sugan tahay ama khasaaro ku sugan tahay waxa software-kan wuxuu ku sheegi karaa macaamiishaada kuwa ugu fiican oo mataqaanaa lacag fiican ka soo gasho wuxuu ku sheegi karaa muxuu ahaa software-kan uu ku tusi karaa muxuu ahaa optionada qaar wuxuu leeyahay inta mataqaanaa deyn adiga lagu leeyahay inta adigu dad deyn ku leedahay dhan ku sheegaya software-ku oo maanta buugga qalin waa laga tagay in wax lagu qoro wax la mariyo digital wax la dhaho wax kasta computer-ka in lagu xisaabiyo marka maanta waa muhiim in software-rada mataqaanaa dadkeena ama kambaniyada waddanka ay isticmaalaan dadka dhalinyaradana waa khasab iyagu inay mataqaanaa waayo opportunity aad buu yaraanaya qofka buugga qalin maanta wax ku bartay ama waxa la dhihi karo manual account-iga bartay kaliya waa yaraanaysa opportunity-ga si shaqo ku helaan oo maanta wax kasta wuxuu noqday digital wax kasta computer wuxuu noqday very important marka waxa muhiim in software-rada barano oo sida u shaqeeyana barano account-ka marka basic barato computer-kan waa saas oo kale baran karnaa marka waxaan rabnaa labada dhacdo oo nagu cusub inaan mataqaanaa aan gelino ayaa loo baahan yahay dhacdada koowaad waxa waaye discount received iyo goodwill discount received wax saas ma aha waxa waaye adiga ayaa macmiil ah oo company macmiil ah ama dukaan macmiil ah discount ayaa lagu sameeyay discount-ga lagu sameeyay adiga muxuu ku noqonayaa income ayuu ku noqonayaa oo lacag aad u heshay oo waxa lagu sameeyay discount-ga $1,600 ayaa lagu sameeyay goodwill wax saas ma aha goodwill waa maxay waa samcadda meherada ama company-ga waxa laga yaabaa meheradaadu inay mataqaanaa meherad wanaagsan tahay hadda barwaaqo kale company waxa laga yaabaa inuu qalabka soo saaro dhismaha oo kale ama qalabka mataqaanaa furniture guryaha oo kale oo mataqaanaa barwaaqo alaabta lagu yaqaano yihiin alaab mataqaanaa tayo soo saarta company-ga wuxuu noqonayaa de mataqaanaa magac ayuu noqonayaa oo qiimihiisa hadhow markuu company-ga la iibinayo qiimaha marka la xisaabinayo alaabta taalla waxaa lagu darayaa qiimaha meheradu inta mataqaanaa suuq ama dadka mataqaanaa si dadku ugu kalsoon yihiin oo kale magaciisu inuu haay yahay oo kale alaabta soo saarana mataqaanaa ay tayo leedahay ama mataqaanaa company caana yahay lacag baa lagu qiimeeyaa marka waxaan rabnaa labada dhacdood sida aan mataqaanaa software-ka loogu safgarayo ayaa rabnaa si ogaano inkastoo kuwan oo dhan hore usoo qaadanay laakiin waxa awal taxana ay noo ah oo iga barateen inaan mataqaanaa aan raadino trading account-iga profit and loss account-iga balance sheet-ka inaan dhammaan raadino laakiin maanta waqtiga aad ugu yar waxaan rabaa labada dhacdo kaliya inaan mataqaanaa tuso next time at that time helana aan dhammaan aan xisaabiyo wax mataqaanaa trading account-iga profit account-iga iyo balance sheet-ka laakiin hadda waxaan rabaa labada dhacdo kaliya inaan isla aragno discount received iyo goodwill sida loogu safgarayo discount received oo ah qiimo dhimis lagu sameeyay adiga inta alaab soo gadatay company ku sameeyay ama meherad tan waa maxay waa meherada samcadda mataqaanaa qiimaha meherada samcadda qiimaheedu noqday $5,000 marka waxaan tagaynaa company-ga sida loo asaaso casharada hore ayaa soo qaadanay oo haddaan aqoonsi company loo asaaso casharada hore dib ugu noqday company-gan waxaa la barwaaqo company sanadka xisaabinayna oo discount received iyo goodwill ay dhacday waa maxay waa sanadka 2019 bishii afraad bishiis muxuu ahaa saddexaad 31 marka sanadkaas ayay dhacday marka sanadkaas ayaa rabaa inaan ku xisaabiyo marka muxuu ahaa waxaad tagaysaa markaad sameynayso waxaad tagaysaa info ayaa tagaysaa sida casharada hore soo qaadan jirnay markaad wax tagaysaa ledger dan waxaa jira meeshan jirta single ledger ayaa jira iyo multiple ledger marka single ledger waxa waaye wax saas ma waa maxay wixii account-iga inaad xabad u sameyso oo xabad u sameyso marka waqti tan qaadataa marka multiple ledger ayaa leedahay oo hal mar ayaa wixii wada xisaabinaysaa marka multiple leedahay create ayaa leedahay enter dan xagga meesha ku qorantay under group waxa ka dooranaysaa meesha ku qorantay all items ay ku qorantay itemyada oo dhan baa oo list of groups meesha hoosteeda ay leedahay all items oo dhan baa leedahay enter dan waxa qoraysaa account-ka xisaabinayna oo ahayd discount received discount received wuxuu hoos tagayaa indirect income profit and loss account-iga ayuu tagayaa qaybta income-ka marka qiimihiisu imisuu ahaa
discount receiver maxaa waa $1,600 waaye oo qiimo dhimis loo sameeyay oo income aan u helnay waa 1600 dan credit side noqonaya waayo profit and loss account-ga qaybta wuxuu tagaya credit side-ka ayuu tagaya marka final account-ga la joogo casharkan wuxuu ku saabsan yahay la xiriira final account-ga dan inter ayaa leedahay maxaa ku xigay goodwill oo ah sumcadda meherada goodwill waa maxay waa fixed asset noqonaysa oo assetka laba ayaa loo kala qaadaa waxa loo tangible asset iyo intangible asset hanti wax asset la taaban karo iyo waxa la taaban karin marka goodwill waa maxay meherada sumcadda waxa la taaban karin waaye waxay soo hoos gashaa intangible asset ayay soo hoos gashaa marka la qiimeeyo maxay $5,000 ayay ahayd waa kan meherada sumcadda marka la xisaabiyo qiimaha wuxuu noqday $5,000 inter ayaa leedahay dan waa safe garasanaysaa safe ayaa leedahay that's only kasaas ayaa loo sameeyaa lacala hadaad xisaabinayso ama ku imaato dhacdooyinkaas oo kale discount receipt iyo goodwill hadaad software isticmaalayso taliga sidaas ayaa la sameeyaa badanaa ama sida ay tahay basaas ayaa loo soo galaya ama dhacdada saas ayaa loo galiyaa marka maanta casharka inta ay ku saabsananaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxbarta aan barwaaqo gaarnay